waxa ay sheekada ku bilaabanaysaa asagoo markaasi ninka la yiraahdo Garam uu furay kaamirada asagoo eegayo cabsina wejigiisa ka muuqato ayaa waxa uu dhahay haddii ay ku yeeraan ha ka furin albaabka hana la hadlin ayagu weji ma lahan. Intaasba markii uu yiri ayaa gadaashiisa waxaa maray wax madow kadibna kaamiradu way istamisay. Muddo kadib ayaa uu gabadhii adeerka u ahaa Susan waxaa loo sheegay in adeerkeed meydkiisa laga helay gurigiisa dhexdiisa. Gurigiisana waxa uu ku yaalay markaasi buuro cidla tuulo yar oo ku taala meeshaas. Susan aad ayay u yaabtay sababtoo ah adeerkeed intuusan dhiman ka hor wuxuu aad ugu waanaa arrinta ah inuu ogaado runta ka dambeysa waxa loo yaqaano kuwa cidlada ah oo ah ruuxaan guruuba loo yaqaanay kuwaasoo lagu yaqaanay inay tuuladaasi dhibaatooyin badan u geeyeen. Markani Susan iyada laftirkeeda waxay ahayd mid wararka qorta waxayna rabtay inay ogaato sababta adeerkeed ka dambeysay dhimashadiisa iyo sidoo kale arrintan la sheegayo waxa ka jira. Subaxdii xigtay waxay u soo safartay tuuladii iyadoo ay markaasi la soo safartay ninkii ay u doonaneed oo la yiraahdo Tony iyo sidoo kale saaxiibadeed Sam. Tuulada waxay ahayd mid cidla oo amoodi dadkii inay iskaga guureen. Dukaamada qaar way iska furnaayeen cidla ayayna ahaayeen. Daaqadahana waxa ku dhegdhegnaa jaraa'idyo qadiimiya. Dad yar ayaa meesha joogay oo tirsan dadkaasna waxay ku eegayeen gabdhihii indho ebera laakiin wax qarinaya. Ugu dambeyn waxay aadeen gurigii adeerkeed uu ka dhintay. Markaasna waxay aaday qolkii uu wax ku baari jiray. Qolkaas dhexdiisa waxay ka heshay buugaag badan oo ka qoray waxyaabo uu raadinayay iyo sidoo kale fiidiyoyaal badan oo markaasi mid walba uu ku qoran yahay magaca dadkii lagu waayay tuuladan. Sidoo kalena waxay meesha ka heshay warqad ku qorneyd waxay xiranayaan wajiyadeena ha eegin hana la hadlin. Markii la kala seexday Susan waxay soo qaaday fiidiyoyaasha mid ka mid ah wayna shiday waxayna aragtay haweeney ooyeysa oo si tartiib u hadlaysa qol mugdiina ku jirta. Waxayna dhahday ayagu xaggan ayay joogaan waxayna qabaan wejiga wiilkaygii yaraa. Haddii aad aragtid arrintan oo kale waa ku baryayaa hala hadlin hana soo dhawaysan. Halkaas markii uu fiidiyowga marayo ayaa albaabkii Susan aad loo soo garaacay isla markiina wuu isfuray oo si xooga sidii inay dabaysha furtay oo kale ah ayuu isku balaqay. Susanna markaasi waxay ku ururtay meeshii ay fadhiday cabsi darteed. Susan markaasi waxay eegtay albaabkii dhinaca kale albaabka waxba ma yaalaan cidnana ma joogto aan ka ahayn mugdi aan dhammaad lahayn. Kadibna cod ayaa ka yimid albaabka dhinaciisa kale wuxuuna ku hayay Susan ma iga furi kartaa waa aniga. Wuxuuna codkaasi ahaa Susan hooyadeed. Susan aad ayay u yaabtay sababtoo hooyadeed waxay dhimatay sanado badan ka hor. Susan aad ayay u cabsatay sababtoo way ogtahay waxa dhinaca kale albaabka uga yeeraya inaysan hooyadeed ahayn. Markaasi si tartiib ayay albaabka dhinaciisa ugu dhaqaaqday ugu dambeynna way xirtay. Subaxdii markii la gaaray Susan waxay bilowday inay baarto arrinta ku saabsan tuuladan iyo dadkii la waayay iyo sidoo kale waxa ka dambeeyay adeerkeed dhimashadiisa. Sababtoo ah adeerkeed waxaa loo sheegay inuu isaga u nisdilay laakiin Susan waxay dareentay inuusan isaga dilkiisa ka dambeynin. Waxay aaday markaasi dadkii tuulada joogay ayadoo ay weydiinayso su'aalo laakiin qof walba wuu diiday inuu jawaabahay rabtay siiyo ilaa ugu dambeyn islaan cajuusada oo indhala ay markaasi heshay una ogolaatay inay waraysiga ka qaado. Islaantii weyneed waxay u sheegtay in qarni ka hor reer tuuladan degnaan jiray hal mar la wada waayay habeenkii markay ahayd. Subaxii markay ahayd waxa kaliya la helay waxay ahayd haragoodii oo ebera oon waxba ku jirin. Markaasina waxay u sheegtay sidoo kale in gabadhan adeerkeed uusan ahayn qofkii ugu horeeyay oo rabay arrintan inuu ogaado. Qof walba oo bartan yimaada wuxuu rabay sirta arrintan inuu ogaado laakiin meeshan iyagoo nool kama aysan bixin. Sidoo kalena waxay u sheegtay in dadkaasi ay markaasi canjilayaan dadka ayaga ay yaqaanaan codadkooda wejiyadoodana ay xiranayaan si ay markaasi u soo saaraan qofka gudaha ku jira. Susan markay maqashay islaanta warkeeda ma aysan rumaysan sidaas darteed ayadoo yeesayso hadalkeeda ayay iskaga soo laabatay guriga. Markay ku soo laabatayna ninkii u doonanaa guriga ma uusan joogin. Saacado ayaa ka soo wareegtay mana uusan soo laaban ilaa habeen barkii markeed
uu soo laabtay asagoo wejigiisa si un uu bedelan yahay. Markii ay weydiisay meeshuu ku maqnaana waxa kaliya uu ku jawaabay inuu cariga marmarayay oo wax kala sameynaynin. Ayadoo ay arrintaasi la yaaban tahay ayay waxay aragtay saaxiibadeed Sam oo markaasi fiidiyoo ku duubtay moobilkeeda. Fiidiyoogaasi waxay maqlaysaa in Sam oo bartan fadhida ay maqlayso isla codkeedii oo qolka kale uga yeeraya oo dhahaya, Sam soo bax inaan kula hadlaan rabaa. Cabsida waxa sii badisay waxay ahayd in markii ay seexatay Susan ay ku riyootay adeerkeedii dhintay, kaasoo markaasi afka uu ka tolan yahay, fartana ku taagaya qolkii markaasi oo alaabihii wax ku baari jiray oo dhan ay yaaleen kaasoo xirnaa. Markaasina odaga wejigiisa cabsi ayaa ka muuqatay, qolkaasna fartiisa kama uusan leexinaynin. Qolka markii gashay waxay aragtay albaab inuu leeyahay oo qol kaloo kusii dhex yaala ah. Albaabkani horey ugumaysa fiirsan. Markii ay gashayna albaabkaasi waxay soo gashay qol gebigiisaba mugdi yahay. Waxaa meel kastana yaala boombale aan moodi qof, laakiin waa boombale caag ah. Boombalayaasha meesha ayay ku wareegsanaayeen, dhexdoodana waxaa yeelay miis iyo kursi qadiimi ah, waxaana kor saarnaa markaasi cajaladaas uu ku qoran yahay ereyga ah ha ishidin. Susan oo fakirin ayaa waxay soo qaaday cajaladii, kadibna way shiday. Markaasi waxay aragtaa adeerkeed oo qaylinayo oo ku haya wejigayga ayay qaateen, banaanka ayay taagan yihiin. Waxaan arkaa isla anigii oo banaanka iska kaysoo fiirinaya. Haddii aad maqlaysid ama aad daawanaysid fiidiyoogan, fadlan ka carar meesha sida ugu dhaqsiyaha badan. Si kedisa qolka waxaa kasoo dabagalay Tony iyo Sam ayagoo ay markaasi ku fiirinayaan Susan dhoola caddayn aad u cabsi badan. Markaasna waxay ku dhaheen, maxaad albaabka nooga furtay Susane? Maxaad noogu ogolaatay inaan gudaha soo galno? Codkoodana wuu ku soo labalaabanayay. Susan markaasi cabsi saa'id ayay dareentay, mana aysan fahmin waxa meesha ka socda. Sidaas darteed isla markiiba meeshii way ka soo carartay. Markii ay carartay waxay isdhahaysay way ku ceersan doonaan, laakiin bartooda kama aysan dhaqaaqin. Albaabka markii ay sii xiraysay ayay waxay aragtay wejiyadooda oo si tartiib isku bedelaya. Markaas Susan waxay ku soo laabatay qolkii adeerkeed, waxayna baartay waxyaabihii buugtiisa ku yaalay. Kadibna waxay akhrisay in dadka xiladaasi ay markaasi isla markiiba aysan qofka dilin, markaasi kaliyaata jirkooda ayay galaan. Qofkii ma uu joogo, laakiin jirkooda iyaga ayaa ku jira, ayagoo markaasi raba inay dad kale sii ugaarsadaan. Susan oo aan rabin inay ka tagto ninkeeda iyo saaxiibteeda ayaa waxay soo qaadatay toosh, kadibna waxay ku laabatay meeshii. Markaasna ayadoo tooshka ifinayso ayaa gacan garabkeeda qabatay, kadibna waxay aragtay inay Sam tahay. Ayadoo markaasi cabsi wejigeeda ka muuqato ayay waxay ku tiri, mugdiga unbay wax ku arkaan, iftiinka waxba kuma arkayaan. Intaasba markay tiri isla markiiba waxay bilowday Susan inay tooshka agagaarka ku ifiso. Markaasna boombalayaashii meesha yaalay ayaa waxay bilaabeen inay qayliyaan, sidoo kalena waxaa bilowday Sam iyo Tony inay qayliyaan. Markaasi ayagoo qaylinaya ayay soo qabatay labadooda gacmahooda, wayna ka soo jiiday qolka, kadibna way xirtay. Markaasi si xawliya ayay albaabkii gurigoo dhan kaga bixisay, mana aysan dareemin waqtiga inuu xilli hore ahaa. Kadibna markaasi ay qoraxda soo baxaysay, hal mar ayay tuuladii dhanna isla wada aamustay. Susan waxay soo qaadatay darag iyo gaas, kadibna waa ay gubtay guriga adeerkeed. Markaasna way iskaga tageen tuuladii dhan. Markii ay sii tagayeen, Susan waxay qaadatay hal cajalad markaasna isbuucyo ayaa ka soo wareegtay. Ilaa maalin maalmaha ka mid ah ay Susan cajaladii shiday. Markaasna waxay dhageysanaysay adeerkeed sheekadu ka sheekeynayay ilaa ay maqashay cod ka dhex yeeraya. Codkaasi wuxuu ahaa isla codkeedii oo si tartiib u hadlaya. Kadibna wuxuu ku dhahay, weligaa naga carari maysid. Markaasna way istamisay cajaladii.